san iminka haddii aynu guda galno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya saacadii aynu kasoo gudubnay qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka ah haddii ay weyne raalli ka noqdo maamulka hirshabelle iyo xildhibaano bilaabay abaabulka howlgallo ka dhanna al-shabaab. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa golaha ammaanka oo muddo kordhin u sameeyey howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya. waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya shir madaxeedka 11 ee dalalka carabta. qodobada qodobo kale oo dhammaystiran ayaynu dhegeystayaal soo gudbinaynaa. aynu ku horeyna taliyaha ciidamada midooda africa ee amisom oo xilka kasii degaya ayaa sheegay in weerarada ay wadaan ciidamada amisom iyo kuwii xoogga dalka ay tahay mid muujinaysa sida ay usii kordhinayaan awoodaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin nabad sababtoo ah waxay soo mareen buu yidhi dhibaato aada u dheer. waxaan ku faraxsanahay in laga bilaabo bishii sebtembar in dowladda cusub iyo shacabka deegaanka ay gacmaha isku qabsadeen dagaalka ka dhanka al-shabaab. waxaa hubaala inay jirto rabitaan siyaasadeed oo lagu hortegaya argixisada soomaaliya buu yidhi generaalkan oo lagu magacaabo ndegeya oo hadda soo gebagabeeyey socdaalkiisa shaqo kadib markii uu soomaaliya yimid bishii agosto sanadkii 2020 si uu xilka ugu wareejiyo generaal ama lagu magacaabo tigabo yelma oo u dhashay dalka etoobiya. dhambaalkiisa sagootinka generaalkan lagu magacaabo ndegeya ayaa sheegay in awoodda ciidamada xoogga dalka ee weerarada jebinta cadowga iyo inay qabsadaan ay tahay tilmaam muhiima oo muujinaysa inay sii kordhiyaan awoodda ay si buuxda u qaadi karaan mas-uuliyadda amniga qaranka iyo ilaalinta dalka iyo muwaadiniinta. intii uu xilka hayay generaal ndegeya midooda africa iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxay dejiyeen qorsho ay ku dejiyeen hanaanka dib u habeynta howlgalka kaasi oo ay hoos imaanayaan qaar ka mid ah saldhigyada hore ee ciidamada sida afgooye marenguwa iyo sidoo kale deegaano kale. wareejinta xarumahan ayaa qayb ka ah fulinta si tartiib tartiiba balse si joogto ah loogu wareejinayo mas-uuliyadaha ammaanka dowladda soomaaliya sida uu dhigayo qorshaha kala guurka ee soomaaliya kaasi oo ah mid ay ku taageerayaan dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeed caalamka. taliyaha ciidamada midooda africa ee amisom ee xilka kasii degaya ayaa bogaadiyey taageerada beesha caalamka oo uu la sameeyey xiriir isfaham ah oo ay u fidiyeen ciidamada midooda africa ee dhanka dhaqaalaha iyo saadka. generaalka ayaa sidoo kale xusay in muddada uu xilka hayay artemis ay dhistay xarumo ay ku shaqeeyaan si ay ugu suurta gasho artemis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya inay qorsheeyaan howlgallada wadajirka iyo xoojinta talisyada iyo qaabdhismeedka. haddii aynu kusii nagaano golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey qaraar muddo kordhin ah oo loo sameeyey howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya muddo 1 sano oo ku eg ilaa oktoobar 31 sanada 2023 ayaa loo kordhiyay xafiiska unisom. muddo kordhintan waxa ay ku soo aaday iyadoo dhowaanba uu dhammaaday waajibaadka ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya danjire james wan. qaraarka ansixinta oo tiriskiisu yahay 200 waa aan idhaahdee 2657 ayaa 14 dal waxay u codeeyeen in la kordhiyo waajibaadka unisom halka hal wadan uu ka aamusay. golaha ammaanka ayaa sidoo kale waxa uu caddeeyey in dib u eegis lagu sameeyo xaaladda soomaaliya iyadoo la eegayo horumarka siyaasadda iyo xaaladda amniga ee dalka. unisom waxaa la abuuray bishii juun 2013 golaha ammaanka ayaa abuuray in la taageero dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta soomaaliya. wahagaag aynu eegno markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isaguna shir madaxeedka 11 ee dalalka carabta oo markaasi algeria ka furmayo halkaasi gaaraya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xalay waxa uu gaaray magaalada khartuum ee dalka suudaan si ugu sii gudbo dalka algeria. madaxweynaha ayaa magaalada khartuum kula kulmay wasiirka gaashaandhigga dalka suudaan sareeyo guud yaasiin ibraahim yaasiin iyagoo ka wada hadlay iskaashiga la xidhiidha dhanka ammaanka. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada iyo waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu xoogga saaraya sidii soomaaliya looga taageeri lahaa la dagaalanka lagu ciribtirayo al-shabaab oo uu ka qaybgelayo shir madaxeedka dalalka carabta jaamacadda carabta oo ka dhacaya dalkaasi algeria aan idhaahde. madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulam duceedyo kala duwan ay la qaadan doonaan madaxda dalka algeria oo ka qaybgalaysa shir madaxeedka 11 ee dalalka carabta. wararka warbaahintu ay heshay ayay sheegayeen madaxweynaha soomaaliya uu uga sii gudbi doono marka uu dalka algeria uga qaybgalo shirka dalka masar si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab.
isla howlgallada lagu baacsanayo laguna ciribtirayo kooxda al-shabaab abaabulka howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa mar kale ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan halkaasi oo ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab balse maalmahan uu hakad galay iyadoo haatanba mar kale dib boorka looga qaadayo howlgalka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed xagar dabageed gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ku sugan deegaanka tardho ee hiiraan ayaa sheegay in howlgalkan uu duuba bilowday ayna dhowaan al-shabaab ka saari doonaan deegaanada ay gacanta ku hayaan xildhibaan cabdulaahi maxamed cali shambalolse waa sambalolshe aan irahday xildhibaan jacfar oo ka mid ah mas-uuliyiinta tardho oo ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in al-shabaab ay maamulaan deegaanada gobolka hiiraan iyo galgaduud ayna dhowaan ka xoreyn doonaan sidoo kale xildhibaanadan oo la hadlay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa kula dardaarmay in ay dardargeliyaan howlgalka ka dhanka al-shabaab dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed xagar dabageed ayaa dhankiisa sheegay in al-shabaab xilligan aysan lahayn awood ay kula dagaalamaan ciidamada dowladda loogana baahan yahay inay intooda badan ka faa'iideystaan ciidamadu sidii ay uga hortegi lahaayeen dadyowgaasi inuu kusii nagaano falanqeyntaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa soo saaray codsi deg deg oo ku aadan gargaar caalami oo loo fidiyo dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii gawaari ee lagu weeraray aagga isgoyska soobe weerarkan oo dhacay sabtidii 29 oktoobar ayaa waxaa ku dhaawacmay in ka badan 300 oo qof waxaana uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay muddo 5 sano waxaan ka codsanaynaa buu yidhi beesha caalamka walaalaha soomaaliyeed iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada kale in dhaqaatiirta ay usoo diraan soomaaliya si ay u caawiyaan cisbitaalada lagu daweynayo dadka dhaawaca ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadal uu soo saaray haddaba ma daabuli korno tiradan dhaawacyada cid kasta oo noo soo diri karta caawin waxaan codsanaynaa in ay noo soo diraan buu yidhi hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay dowladda ka caawiso daweynta dadka dhaawaca iyo bixinta daryeelka dhaawacyada ilaa hadda lama ogolo lama ogo hal dowladeed oo kasoo jawaabtay codsiga dowladda soomaaliya inkasta oo dowladdu ay sheegtay in dibadda ay u qaadayso dhaawacyada xaaladahoodu ay liitaan saaxiib ayaal kusii nagaano isla khasaarihii waxyaabihii ugu dambeeyey qaraxyadii soobe ee kusoo kordhay haddaba sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya oo u sheegay warbaahinta in tirada dhimashada ilaa haatan dowladda ay ururisay ay tahay 119 ilaa 120 qof oo la la-yahay iyo 324 qofood oo dhaawaca sarkaalkan ayaa codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo looma ogola inuu la hadlo warbaahinta saraakiisha amniga ee dowladda ayaa aaminsan in qaraxan ay geysteen markaasi baabuur uu waday qof ismiidaamiyey iyo mooto la dhigay isgoyska agteeda tirada ayaa ka dhigaysaa weerarkii sabtida ka labaad ee geystay dhimashada ugu badan soomaaliya weerarka ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa weerarkii oktoobar 14 sanadkii 2017 ee ka dhacay isla goobtaasi isgoyska zoobe ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan dhacay sabtidii madaxweynaha soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey